calaamadaha marka dhaca maxaa ka mid ah oo qofka uu isku garto oo inuu low iron yahay lagu garto maxaa ka mid ah calaamadahaas waxaa ka mid ah fatigue daal fara badan inuu qofku iska daalan yahay weak inuu daciif yahay oo qofku maaragta uu maantoo dhan uu daciif yahay oo uusan shaqadii iyo wixii loogu talagalay uu qaban jirin uusan qaban karin shortness of breath waxaa loo yaqaano inuu wax yar hadduu 2 tilaabo qaado inuu neefsanayo inuu soo ordoo kale isku malaynayo weli qofkii isagoo wadnuhu xanuunayn oo wax dhibaato weyn oo jirin uu mar walba uu iska xiiqsan yahay oo calaamadaha lagu gartay ka mid tahay waxaa ka mid ah calaamadaheeda maaragtay light headache madax xanuun aan darnayn waa light headache oo qofka madaxu iska xanuunayo iska joogta ah laakiin madax xanuun weyn oo marmarka oo daran ma ahan oo qofkii ama uu la seexayo ama uu dhakhtar la aadayo inta badan waxaa laga yaabaa inuu qandho-jabis iyo wax iska laqo laakiin waa wax iska joogta waa light headache la yiraahdaa macnaha xanuun yar oo meel dheer oo headache waxaa ka mid ah dizziness wareera ka mid inuu qofkii uu wareero oo sidii u joogo jihadii iyo xoogaa ay ka qaldanto weliba markuu inta istaago uu soco maaga isagoo meel fadhiyay iyo wax yaroo wareer ah oo degdega intuu dareemo haddana iska taga waa calaamadaha lagu garto low ironkay ka mid tahay hadday xaaladeedu ay sii adkaato oo ay sii fogaato ay sii socoto wax badan difficult concentration waxaa ka mid ah inuu qofku xoogaa wax inuu focus gareeyo iyo inuu wax akhriyo iyo inuu xataa ku dhegeysto qofka la hadlo conversationka dhamaysto iyo inay dhibto uu maaragta isagoo hadda waxaayey uu hadiiba kasii jeesto ka tago wax kala aado waxaa la yiraahdaa maaragtay ii sheeg difficult concentration la yiraahdaa ma focus garey kara waxba qofku xaaladdu markay sii adkaato oo xoogaa ay baashu waqti badan jirto waxyaalaha dadkoo dhan kuma wada dhacdo laakiin waxaa ka mid ah severe caseska fainting inuu qofku suuxoo dhaco marka meeshaan rabaa inaan xoogaa yar emphasis badan geliyo xoogaa yar ku hakado suuxdintaas haddaad aragto qof bishiiba mar suuxaaya oo dumara oo gabar oo dhalinyara ama 2 mar ama mar bishii suuxaaya oo meelaha madaarista iyo waa arki jirnay Soomaaliya iyo meelaha kale sida Kenya Afrikada kale meelaha Soomaalidu weliba aadka ugu badan tahay gabar waxaad arkayda ama gabdho madarasadii ama iskuulkii 3 4 5 hal mar ku wada suuxayda oo weliba xilliyada maaragtay kulaylaha oo kale ku suuxayaan oo haddii ilaahay kuu roon yahay guriga ku suuxayaan haddana intii maaragtay dhiigagii iyo wixii la baari lahaayo investigation lagu samay lahaa anu ma fahmayo macnaha health care systemka miyaan aan fahansanayn oo waxaanu xanuun jiray inta loo fahansanayn ma dadka xoogaa wax kale ka aaminay oo caafimaadkaba qaybtaas laguma soo darin waxaa la sameynayo inta badan aragnaa inuu qofkii biyo lagu rushayhayo meelo cilaaja la geeyahayo waa sax qofku in la quraan saaro quraan saarkaas uu ku daawoobo meesha xanuunkii jiray la waafajiyo waa sax waa la quraan saaraa qofku markuu jirado laakiin in meelo cilaaja la geeyo qofkii la ulayo waxbaa ka hadlaya la yiraahdo ruuxaan ahayda la yiraahdo haddii ilaahay kuu roon yahay biyo lagu shushubo taasu macnaha underlying condition xanuunka jira ma ay daaweeyaydo xanuunka jira waa xanuun biological oo jira qofka jirkiisa ka dhex socda oo maaragtay dhiiggaas oo yar weeye si kale ood fahmi kartiin haddaan idinkugu soo qaato ii sheeg gabdhaha Soomaaliyeed oo da'daas ama age-gaas Soomaaliya kaliya ama Afrika kaliya ma joogaan kumanaan kun boqolaal kuna America joogta Europe joogta Australia joogta Canada joogta meelo kala midoo caalamka ka mid ah joogaan iskuulaadka kuma dhex suuxaan haddii ilaahay kuu roon yahay guryaha kuma dhex dhacdhacaan uma badna waa macnaha waa very naadir inaad aragtaa marka maxaa dhacay taa isweydii adigu ruuxaantii Yurubta iyo America ma aadamiya iyo dadkii ishii iyo fiirinayay iyo wixii maaragtay lagugu sheegay gabdha sidoo kale markii hore suuxi jiray markay Soomaaliya joogeen oo bishii 2 mar dhici jiray markay Yurub iyo America tageen qaarkood laga yaabo in fiidiyowgan daawadaanba wixii waa isku dhamaadeen markay xagee aadeen wixii oo dhan ma Soomaaliya looga soo tagay ma operation madaxa looga sameeyo markay Yurub iyo Mareykan tageen daawo magic ah la siiyay waxaas oo dhan ma jiraan anaa idiin sheegaya waxaa jira wadamadan maaragtay qurbaha westiga weliba Yurub Canada Mareykan iyo kale family dhakhtarkooda markay u tagaan waaba la ogyahay gabar child bearing age oo sanadkaas ku jirta iron la siiya iron deficiency waaba la ogyahay inay qabto supplement la siiya sanadkii maray family dhakhtarkeeda u tagtaa waa la jeegareeyaa daawadaas qaada leeyahay qaarkood 6 bilood ay socdaan kaniiniyo weey qaarkood sharabooyin weey haday daran tahay dhakhtarka go'aansada qaarkood sanad dhan ay wadaan qaarkood maba joojiyaan wada la yiraahdaa iron supplementiga haddaad maaragtay diet-kaagu uu safiicnayn oo sidaas lagula maaragtay dardaarmaa
marka haddaad maqli jirtay maaragta gabar ama ay qaraabo kula ahayd 3 mar bilshii 2 mar dhici jirto suuxi jirto oo la ulay jiray oo Yurub iyo tagtood maqashay mar dambe suuxdimihii iyo wixii waa ka tageen macnaha la tacaalka la sameeyo wax weyn maahan ironkaas unbaa laga xaliyey marka meel kastoo joogtana maaragtay iron supplementigaas iyo daaweyntaas dhakhtarkaagu wuu ku sii karaa haddii ilaahay kuu roon yahay farmasista oo haddaan dhakhtar meeshaas joogin oo daawooyinka iyo symptomska iyo waxaas yaqaano waxaan ku takhasusoo yaqaanaa wuu ku sii karaa laakiin waa inaa isbaarta oo ogaataa taladeedu sidaas waay marka